السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيجا قالجا وايد سلامي دمان ميل والبو الدنيا كجوكتين فضلا هدي أكو عصبتها جنال كينا هدى بنتي مختار سبسكرايب لايك شير كومنتي نوغو عاوي عدسي واي قصب ما هدي هورين ولا جوكتين وكاغا مهد علينا وقتي غاغا قروح بدنا نوغو داوانيسي تيم جواهر اوفيشيال نميشان اوغا مهد علينا آد أمهات سنتين ولا لهيجا قالجا وارك كومنتي جينا قروح بدنا إلهي ها إذن حفظ الله إذن بركيه جواهر أديقنا وحان كلية وما تسنتا ولا شيء قالي إلهي هاكو حفظه هوري أسعو ولا شيء كاملودي كلامكي ودبوبي كلي اللاب فرح دونك عادي دادكو كوكعين جرق الصلمالينتا إلهي قالي قامات وحاربا إنا إذن لو ذاقو قصة عجيب ويلكو دعدي وحونا ويل كان مقعيق وهشام صدني سدح جيرا أهي وحالنا ولاهي هويدي سدح ويلو إيغير آبهي وادنت إلهي ها نحريست وحان صاحبنا هاي اسكو حافظ أنكو لالاني ويل لغو مقعابا عدنان وحبرشانا آيسلا دميني أنيقي عدنان وحان نوفرن ودهي ميشا أو ميلاها بابورتا لغو سميو aan noo furan makaaniigaan nahay markaani waxaa ii qatuuban oo dhahay ama ii doonan gabar lagu magacaabo Saara oo aan qaraabo koranahay markuu xoray arooskeena isbuuca ka dhiman maalmaha kamid ah Saara waxay dhahday badladii arooska ama suudkii arooska anaa ku soo iqtaarayo maanta banaankan waa ka soo casheenayna waayahan oo yiri maalmaha kamid ah anoo gaarigeygu wato oo xaafada Saara soo aaday xaafad Saara soo aaday oo Saara oo ma sha Allah qurux badan oo labisan ii soo baxday aan israacnay oo aan rabnay inaan suuqa sii marno suudkii aan maxaa lahaa sheeg oo arooska iyada ay ii iqtaarto dooqeeda oo noqdo oo dooqeeda ay igu bixiso kadibna aan waxa aadno meelaha laga cuntay jidka inta socona anigii Saaro isla socono oo waxaan istaajiso dhahay askar waxay dhahay Hisham hebel adiga miya ha soo degdacwaa lagu qabay Saaro way isku naxday markaas waxay dhahay sabab muxuu halay markaas waxa la yiri saldhiga uu ku ogaana wuxuu halay alas ani waa soo dajiyo dhahay gacmahana hore la iiga katiinaday anigo yani isku naxsan oo waxaan ina halayna ma is ogiyo dhahay subhanallah ali soo dajiyo gacmaha la iiga katiinaday dhahay gaariga oo baabuurta waxa la isaaray askarta Saarana waxa dhahay askariga lagu daray gaarigeyga askariga dhahay furaha u dhiib furaha qaado gey Saaro gurigeeda gey markaas ay dhahday maya saldhiga la keeno dhahay ilaahay amarkiis waxa la igeliyo dhahay qolka oo mudiirka la igeeyay yani ninka oo ugu weyn ali igeeyo dhahay markii la igeeyay waxa la dhahay adiga Hisham hebel ma tahay ha dukaan oo macruuf yani oo marka magaalada aan deganahay macruufka oo dahab lagu gado oo weyn waxa ka xadaalay dhahay katiinad 53 garaan markaas waxaan dhahay subhanallah goormeeba tagay dukaankaas yaana isoo dacweeyay qofkii kusoo dacweeyay hadda imaanaha la dhahay joog meeshaada katiinadaas ina xadayne waa kugu cadahay marqaatiya lagu haya qalaas cabaar marka joogo 10 daqiiqo amal aan fadhiyay meesha waxa imaato dhahay gabar lagu magacaabo Ibtisaam imaato dhahay kursiga aniga fadhiyay mid ka soo horjeeday fariisatay markaas dhahay ninka maxaa dhahay katiinada xaday ninkan miya markaas ay dhahday ha katiinada ninkaana xaday Hisham ana ku soo dacweeyay magaciiga Ibtisaam way waxaan ka shaqeeyaa dukaankaas macruufka ah oo la yaqaano oo ku yaala suuqa waa dukaamada ugu weyn oo dahabka lagu gado waxaan subaxiyaan soo galaa waxa xaqa markii ninka dukaanka iskale intoosan imaanin ka hor waa nadiifiyaa waa xiraa ninka dukaanka iskalena furo heesta anigana furaan heesta ay dhahday markaas oo dhahay ma hubta aniga ma xaday ha adaa ii imaata waa ii handada waa iga qaaday katiinadaas qaaday katiinada say u taala waay katiinada sawirkeeda marka oo mobilkeedu ku jira katiinada sawirkeeda waa kana waa katiinad weyn kooro weyn 53 garaan ani waa yaabo dhahay waa aamusay isla markii horta aniga waxa la ii waco dhahay maxaamigeyga la ii wacay iyo Adnaan la ii wacay waa lagu ogolyahay lawyer-kaaga in aa wacatid ilaahay markiis wuxuu yiri lawyer-kayga iyo Adnaan oo isla socdaana imaadeen waxa la dhahay katiinadan ninkaana xaday wayna ku cadahay marqaatiya loo haya gabadha meesha ka shaqeynaysa ku marqaati ku cuyso waa yaabo dhahay qalaas gabadhi gurigeedii aad anina waa leexiri Saarana gurigeedii aad Saaro marka xaafadeeda ay u soo noqotay
waxay tiri nin tuug ah oo meesha suuqa dahabka dahab ka xado aanba anigana mustaqbalka sugaayo inuu i guursado aan sugaayo aan u qaduubanayo sumcad xumo iyo waxaan ka qaaday sharaf darro saaro way xanaaqday tuhuntii oo la i tuhmayne way igu caddaysay inaan wax xaday way igu caddaysay yacni ma hubsanin xataa ma kula tahay hishaam in uu waxadaya nin yacni oo magac leh oo sharaf leh oo qaraabo aad tihiin oo kuu qaduuban oo ku guursanaya nin oo hata qof ma aa sharaftiisa iyo karaamadiisa ku ciyaaraya asagoo isbuuc kabacdi arooskiisa ay tahay على كل حال وحنا سارة ويحناقدي أديك أسبوع مركا حرنا يوم هاي أنيقا تضرب بري مركا حرنا ومحامي إيه عدناني إساكي صوت دم النقناين أو حالة إنه يرتضرب بري كبعدي محكمة ذا لوصو سارة وأنا استفاع كرتا أديك وحكي سنة لويرا كين سنة كبدا أنا لويرا يكيني يعني والإذا محكمة ذينا اللي بدينا بهدي أي كوكو عدات إنا كتينا داس حدي إنت أصلا سنة لقوه حكومة على كل حال وحوير مالك محكمة ده لجاري مالك محكمة ده دي لجاري أنا كتير سنة اللي كانوا أنت أنا محكمة ده اللي يجيني كور أو اللي يجينين قولك أو حالها جبدا أي إماتة الصبح نموي جبدا أي إماتة لبدا أسكر أو أنا جربها يجودين ويحكوا عطستي وحيل إنه إلى هذا الشيء مركز وحيد هذا ولا لو أديك كتير ده ما حدين أنا حذي كتير ده هو يا تعبان إهد إسبيتال جيفته mana awoodin ay dhahday lacagta isbitaalka lacag badan ay ahayd dhakhtarku wuxuu ilaa lacagtaas daadan bixinaynin hooyada isbitaalka ma laga bixinayo kaamiradaha oo dukaankan anaa damiyey laano waa lay arkaa hay dhahday markaa xadayo laakiin intaan xadin ka hor anaa sawiray katiinada muddaan ku daba joogay oon ku waardiyeynayo oo aan asalkaaga iyo fasalkaaga iyo waxaa tay aan soo ogaanayo yacni inaa adiga aan kugu nabane ani waa go-aankaas gaaray sababtoo haddii aniga laygu ogaado inaa aniga xaday dhibaato fara badana iga soo gaarayso khalaas wuxuu yiri waa la idaayay gabadhii waa layga leexiyey qolkii maxkamadda la igeeyey maxkamaddii markii aan tagnay oo la istaagay oo waxa imaaday qaadiga imaaday oo la istaagay waxaan dhahay oo dhahay gabadhiya waxaa la dhahay haye ninkan miyaa ninka katiinada xaday inta aysan jawaabta iida qaadanin oo su-aasha la weydiiyey jawaabteeda intaysan qaadanin anaa istaago dhahay ha anaa xaday katiinada waa isku caddeeyo marqaatina looma baahna yani lawyer looma baahna anaa xaday katiinada hooyaday waa joogtaa oo dhahay saddexda wiil oo ila dhasheen cadnaan waa joogaa oo dhahay saaxiibkay way yaabeen maxaa iskugu nabtaa lay dhahay horta marka ugu horreyso oo dhahay inta maxkamadda lagu jiray qofee ma hadli karta ma iska dhinac hadli karee waa istaagay anaa xadayaan dhaho yiri khalaas waxaa la iskugu soo noqonaa fadhi labaada la iskugu soo noqonaa jalsad taaniya leeyahay xukunka markaas oo dhaca waa la isoo wado dhahay waa baxoo dhahay sijinkiyaa la igeeyey hooyaday iyo walaalahay way yaabeen walaalow maxaa ka wadaa maxaa iskugu caddaysa markaasaan waxaan dhaho yiri hooyo iyo walaalahay guriga aada cadnaan adiga ii har cadnaanaan la hadlay waxaan dhahay gabadha raadi katiinada sawirkeeda qaad ma fahantay katiinada soo raadi katiinada hadda haddii lasii gaday xataa suuqa weli kama bixin way cusub tahay hadda leela xaday gabadha raadi katiinada sawirkeeda ka qaad katiinadii nafsi katiinadii soo gad marka qofna ha u sheegin xataa lawyer ha u sheegin hooyo iyo ha u sheegin dad ha u sheegin adiga saas yeel gabadhaan dhibaatadana ku dhacday katiinadana iyadaa xaday khalaas waayaho idhahay dhib ma lahan عدنان سيدي اسكو اوغين اديك اسبوع كدبنا waxaan leenahay yiri maxkamadii kaleeto yani xukunkii yaa dhici rabo ilaahay amarkiis wuxuu yiri cadnaan gabadhii uu raadiyay lambarkeeda oo ka qaatay katiinad sawirkeeda oo qaaday katiinadii waa la soo gaday lacagtayda lagu soo gado dhahay katiinada isbuucaas ani aan ku jiray sijinka aan ku jiro dhahay saara waa danaysatay waxay tiri sumcad xumo iyo sharaf darro maba u joogayay tiri xaaf magaaladan magaalo kale aad oo dhahay wayba ka tagtay faraantigina waxa la waalidkeeda u dhibtay waxay tiri yo igu tashanin Hishaam adiga hal bil amal xirnaayo dhahay alxamdulillah rabbil caalamiin katiinadii waa la soo celiyay dhahay katiinadii hadii la soo celiyay maxkamadii la isoo istaajiyay waxaan dhahay katiinadii anaa xaday waana soo gudaa ninkii oo meesha iska lahay wuxuu dhahay yaa la xukumin maadaama uu dhahay katiinadii waa gudaa hadooba soo gudo khalaas اللي يسكت داي عفي سو نجاي هاي كبرينا وحال هاي نكان عفي
sidii la isku cafiyey waa soo baxnuu dhahay khalaas ani waa la isoo daayay waxaa la ii sheeguu dhahay saare inay baxday ee magaalo kala aaday iga danaysatay oo fikrad xunna ay iga aamintay muddaa laga joogou dhahay alxayaa maashiya nolosha waa iska soconaya muddaa la joogou dhahay bilooyin kadib wuxuu dhahay maalin maalmaha ka mid anoo ka imaaday oo dhahay meeshii oo aniga saaxiibkay aan shirkada ku ahayn oo makaaniga aan ka imaaday oo gurigeyna aan markaas galay oo dhahay casirna ee tahay hooyadeyna ay kursi ku fadhido oo dhahay saalada kuraasta saalada taal mid kamid ay ku fadhido anigana aan qolkayga sii galaya albaabkeyna lasoo garaaco dhahay albaabkeyna haddii lasoo garaacay anaa taagnaayo dhahay anaa furaaya aan dhahay albaabkaa u laabtoo dhahay waa furay gabadhii waay katiinadii igu nabtay ibtisaamaan dhahaa haye ibtisaam aan dhaho yiri maxaa kaloo igu nabi rabtaa markaas intii qosashay tiri wax inaan kugu nabo moo imaanin maalinkii oo katiinada aa gudaysay oo maxkamadda aa laheyd oo lagu soo daayay markaasaa iigu kaa dambaysay waxaa jeclaystay inaan kuu imaado oo cafis aan ku weydiisto iska kay saamaxay dhahday sababtoo ee duruuftaa igu kalifta ani hooyaday sakaraaday aheeday dhahday tacbaan ani keligeyna ilmo dhanka qabtahay dhahday meeshaas dahablahaasa xaaqaa aan qadaamo ka ahay aan nadiifiyaa wax aan ku daaweeyani wallaahi ma haysanay dhahday anigana maxaa la dhahaa ii sheeg si kaleeto oon wax yeelana ma lahan sababtoo waxay dhahda dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku dilaanay dhahda markaa wax ku nabtid adigana maskiinnimadaada markaa arko muddo aan ku daba joogayaaba waxaan go-aansaday inaan kugu nabo qof kaloo adiga ahayn oo isaacidayo wallahi inuusan jirin aan umalaynaya dhahday waa isaacida ilaahay khayraa ku siiyo aboowow iska kay saamax inaa isaamaxdaa u imaaday markaasaa waxaan dhaho yiri hooyaday ku baraa hooyaday horta markii hore waaba ku casabsaneedoo way ka xanaaqsaneedoo maxay kuu nabee maxay kuu yeelahay dhahaysay laakiin markii dambe hooyaday aan ka dhaadhiciyey yacni waxay tiri dhib ma lahan iska saamax hooyadayaan baray walaalahayaan baray cadnaanaan baray calaa kulli xaal gabadhii waa isfahanay waa isbaranoo dhahay ugu dambeyntii oo dhahay bilcagsi waxaan damcayoo dhahay in aan weydiisto guur oo aan dhah walaalay aan isguursano wuxuu dhahay intaa aniga ayada guurka aan weydiisanay iyadaa waxay dhahday ka waran haddii aan isguursano marka wuxuu dhahay hadeertaan waxaan qabaahoo dhahay ibtisaam 2 cunuga ii haysaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waa dhaqanahay qisadaasaa igu dhacday marka qisada ciwaankeeda wuxuu ahay qof aan waxba haleynin oo sijin soo dhadhamiye oo la xiray asagoo beri aan waxba haleynin ma idinku jiraa marka asxaabteyda qaaliga ana waxaa jeclaystay inaa idinla wadaago qisada wiil carabi ay ku dhacday qisada carabi waaye iyadoo carabi ah meel kasoo daawaday anigana af soomaali inaa idinkugu soo gudbiyaan jeclaystay haddii aad ka hesho videoga fadlan subscribe like share comment inagu caawi waa mahadsantihiin